komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa maanta 6 gobol ee Somaliland tababar uga furay in ka badan 3,000 oo arday kuwaas oo laga soo xulay jaamacadaha kala duwan ee dalka waxaana ka shaqayn doonaan doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee qorsheysan inay qabsoonto dabayaaqada bishan aynu ku jirnay ee May 13keeda munaasabad loo sameeyay furitaanka tababarka oo ay ka soo qayb galeen madax iyo mas'uuliyiin ka socday komishanka doorashooyinka ayaa waxa ugu horeyn goobta ka hadlay mas'uuliyiin ka socday komishanka doorashooyinka qaranka kuwaas oo ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan muddada uu socdo tababarku laba arrimood oo kaliya baan ka hadlayaa mid waxa weeyaan idinka dhexdiina idinka commission ahaan dhexdiina oo aan uga jeedo heer gobol iyo heer degmo inaad imaka laga bilaabo iyo horaba ay tahay waajib in aad hadalkiina iyo adinkiina iyo isku mid ahaanshihiinu aad horeysiisaan erey kasta oo ka baxa oo idinkoo commission ama degmo noqdo ama gobol noqdo habeenkii ka dusa ama maalintii ka dusa waa bambo qof kale aad isugu soo dhiibtay oo leedahay ugu soo tuur adigu marka kow niyadiina iyo maankiina iyo shaqadiina iyo is-ilaashadiina dhexdiina waa imaka number kow bay ka tahay shaqada aad qabanaysaan ninowna quruxi kuma jirto inaad nin kale u faanto ama ka faanto wax alla wax quruxo ku jira ma jiro ilaahay bini'aadmiga dabeecaadkoodana waa kala duway waanay kala duwanaan doontaa marka iswadashada iyo is ahaanshaha taas aad iyo aad baan u dhiirigelinaya qodobka isaguna ka la midka hay ku jira qodobka waxa weeye adiga iyo shakhsiyadaada imaka markaynu tan ka baxno maanta aynu tababarka ku jirno qof walba wajigiisa iyo magaciisa iyo diintiisuba u dhowrantay laakiin marka aynu doorashada ka baxno waa ayaan daro haddii saddexdiiba aad weydo saddexdiiba waxaad ku waayaysaa adoo in adeerkaa u hiiliyey adoo midaad jeceshahay u hiiliyey adigoo la faqay adigoo la soo caayay cid kale intaba waad ku waayaysaa shaqada adagoo ina sugaysa oo waktigeedii kolley wax yari ka dhiman yihiin waxa weeye diyaar ayaa loo diyaar garoobay aqoon ahaan iyo si kastaba waxaan marayaa tiimka halka fadhiya hadday yihiin guddoomiyaasha gobollada kuwa degmooyinka xogeeyayaasha kormeerayaasha iyo dhammaan hablo iyo ragba aada iyo aad baad umahadsan tihiin waktigaas aada ku bixiseen in shaqada u diyaargarowgeeda iyo wixii aada ka kororsateen intii aada ku sugnaydeen workshopka soonaarka aad iyo aad baad umahadsan tihiin waxaan leenahay waxa la yidhi faraska waxaa jadalka loogu dhuftaa orodkaa ka kordhiyo shaqada insha allahu ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in ilaahaynu ku asturo innaguna inuu diyaar garowno qof kastina meesha uu kaga aadan yahay uu xil iska saaro shaqadu sida horeyba loo sheegay waxay ku wareegi doontaa insha allahu gobollada iyo degmooyinka gobollada iyo degmooyinka iyo goobaha marka waktiga insha allahu dhowr iyo tobanka cisho ah ilaahay inuu guul noogu dhameeyo qaranka oo dhami inaguna soo eegaya waxaan doorasho ahaynba looma jeedo inta la soo eegayo inta ugu muhiimsan waa intaan ku fadhida inta shaqada ugu badan qabanaysa waa intaan ku fadhida inta guusha ku suntanaan doonta biidmillahi alkariim waa intaan ku fadhida marka aada iyo aad baad mahadsan tihiin guul baan insha allahu idin wada rajaynayaa waa markii ugu horeysay shaqaalaha gobollada iyo degmooyinka oo isku dhan aynu hal meel isku nimaadno sababta la isugu keenayna waxa weeyaan in aynu fariin midaysan kala tegno hawsha tababarkaasi wuxuu aasaas u noqonayaa hawshan aad qabanaysaan waad dareenteen inuu ka culus yahay tababaradii hore ad qaadan jirteen oo dhan diiwaangelinta tababarada ad qaadateen waa waxaad hore u samayseen doorashooyinkii hore madaxtooyada iyo golaha deegaanka hore iyo ciddii joogtay iyo baarlamankii horeba qaar badan baa joogay tiina way ka duwan tahay oo iminka waxaad moodaa in hawshu libilaab tahay tababarkuna uu ka cuslaa waktiga tababarka aad qaadateen iyo tobicska ama mawaadiicda qaadateenna way kala cuslaayeen oo mawaadiicda ka badnaa waktiga waxay xilli fiican inaad tababarkan ku qaataan warwarka halkaa iga hayaa waxa weeyaan in dad badani ay fudeedsadaan waxyaalaha tababarkaa ku jiray ee ay tahay in
aad si wanaagsan uga bogato ama ha noqoto maareynta natiijada ama ha noqoto cabashooyinkii sidaad u maamulaysid ama ha noqoto goobaha iyo xaruntan hawshu ka degmada iyo gobolka hawshu ka dhacayso waxyaalahaas oo dhan waxaan u baahnay markaa maanta laga bilaabo ilaa inta doorashada la gaarayo buugaagta la idin siiyey iyagana wixii su-aalaa in WhatsApp groupka ay iska soo weydiisaan waayo hadhow idinkaa marjay noqonaya cidda hadhow kelmadda ugu dambeysa leh markay noqoto golayaasha deegaankuna waa guddoomiyaasha waa shaqaalaha degmooyinka gobollada baarlamaanka markay noqotona waa guddoomiyaasha gobollada ama shaqaalaha gobollada marka wixii su-aaleed qabtid waxa fiican intaan la isgaadhin inaad soo weydiisid ciddii aad is leedahay way idinka dhexdiin xitaa haddaad isweydiisaan si ay u kala faham badan tihiin ida lafteedu waa wax la samayn karo dee horta aada iyo aad baa umahadsan tihiin aada iyo aad baan runtii idinku mahadnaqaynaa aada baan ugu faraxsannahay in tababarkii dhammaaday in la isugu wada yimi inaynu diyaar garownay 3 casho inoo socday dhammaan gobolladii iyo degmooyinkii isugu yimaadeen aan loo kala maqnayn dardaaran iyo farsamo iyo isu caqli celin iyo siday tahaybana aynu u nidhi waxa inoo raacayaana haddii alla ka dhigo ay tahay inaan jaanis dambe oo lagu midaysan yahin laysu helin qof dee xafiiska iyo in laysugu yimaado oo maalin iyo laba laysku ararko waa suuragal laakiin inaynaan dub inagoo isu dhan isu helhelin ilaa doorashada in commissioneero dee idinku iman doonaan gobolladiina oo commissioneeradaasu dee liid garayn doonaan haddii alla ka dhigo operation ka socda iyagoo runtii dee u daba fadhiyaya guddoomiyeyaasha gobollada iyo degmooyinka ee dee operationka mucdiisa ku jira usuu dee commissioneerku u noqon doono dee guidance iyo wixii marba ama baahi noqota ama hawl noqota inuu la wado laakiin aan la is odhanin dee commissioneer baa jooge hawsha isagu dee maaragtay tuurta ha u rito uma ridanaya hawsha dee idinkaale waa la commissioneerku waa idin caawinaya hadduu idinku yimaado meesha wixii uu caawimo iyo fakar ka geysan karo somtel isgaarsiin socdaasho satellite-ka lagu xiray sakankaa go-een bay somtelna siisay kaalayo la saaxiib somtel waxay idin haysaa internet xawaare sare leh ku shubo $5 oo keliya oo hel 6 GB ku shubo $10 oo hel 13 GB ku shubo $20 oo hel 28 GB ku shubo $30 oo hel 40 GB adiga oo kaga shubanaya adeega casriga ah ee dahab sidoo kale ku raaxayso adeega muraad ku shubo $3 oo hel 10 daqiiqo oo ku hadala ku shubo $5 oo hel 2000 oo daqiiqo wow kala xiriir faahfaahintaas dheeriyana nambarka macaamiisha ee shaashada kaaga muuqda 151 ama 152 ku raaxayso sim cardka somtel